xaflad ballaaran oo soo dhaweyn ah oo ay isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa waxa ay ka dhacday magaalada London. Xafladdaasi ayaa waxaa lagu soo dhaweynayay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta mudane Maxamed Aadan Ibraahim oo dhawaan soo gaaray magaalada London. wasiirka ayaa dalkan Ingiriiska waxa uu u yimid shir caalami ah oo ay soo qaban qaabisay shirkadda Icon oo ah shirkadda qaabilsan maamulidda internetka adduunka. intaasi kadib wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ayaa ka qayb galay xaflado soo dhaweyn ah oo ay u sameeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada Bristol iyo magaalada London. xafladan ka dhacday magaalada London ayaa ugu horeyntii dadkii halkaasi ka hadlay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan. Assalaamu calaykum, waxaan ku salaam salaanta muslimka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. waxaan salaamayaa madaxda dhan oo sharafta leh ugu horeeya madaxweynaha Xasan Sheikh iyo wasiirada iyo maanta wasiirka Maxamed Ibraahim Xaaji. waxaan leeyahay welcome to London. waxaan kugu soo dhaweynaynaa si sharaf ah xilka qaadana Allah ku fududeeyo, Allahna kula garab galo. Soomaaliland waxaan leeyahay nabad u soo iftiintay, Allah u zaa'idiyo nabadna inay ku soomaan inuu ku waarana Allah u kasoo nabaduna waa saldhigga ummadda Soomaaliyeed maanta waxa uu qaalisan oo ka maqan waa nabad. wax kale oo maanta ka maqan ma jiro. haddii nabad la helo ninkii beer falanayo iyo ninkii xoolo dhaqanayo iyo ninkii kalluun dabanayo intaaba waa waxa uu helayaa nolol buu helayaa. wax badan ayaan ka soo qabanay oo intaysan dawladdu jirin ka hor waa ku soo dadaalnay ilaa 1997kii ilaa hadda. waxaan isku daynay inaan caalamka gaarsiino oo aan dhahno doodo isagoo wax loo isticmaalaa social network, wax loo isticmaalo waxaan iskale Soomaaliya. marka calanka buluuga ah iyo owdana inaan isdhexgelino fikrad anagu aan lahayn ahayd. marka aad baan kugu soo dhaweynaynaa mudane wasiir Eurosom iyo doodo isagoo waxaan aad u jecelnahay in dawladdu wax badan la qabano. halkan waxaan isku nimid inaan soo dhaweyno wasiirka boostada isgaarsiinta Mr. Maxamed dadweynaha halkaas ku yimid aad bay u mahadsanyihiin rag iyo dumar bale. wasiirka boostada iyo isgaarsiinta mudane Maxamed Aadan Ibraahim ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan Ingiriiska waxa uu uga warbixiyay wasaaraddiisa boostada iyo isgaarsiinta waxqabadka ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed. hadalladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan. waxaan rabaa inaan waxyaalo yar bal inaan wargeliyo muhiimadda ugu weyn rabaa inaan ila shaqeysto waxaa weeye aniga dee waddanka wax yar baan moogahay, wax yarna waan ogahay, wax badan ma ogi, aniga wax yar baan ogahay. marka intaa yaraan ogahay baan rabaa inaan wax yar ka sheego oo ma laga yaabo sawirkaa ka haysataan waddankii in bal waxoogaa distortion gala markaad warar ka daawataan CNN ama BBC waxaa laga yaabaa inuu ka duwan yahay warka Soomaaliya dhexdeeda ka jira. marka intaa baan rabaa horta wax yar inaan idinka sheego oo kooban. waqti dambana weeye marka ma rabo inaan idin daahiyo. aniga waxaa weeye qaybta aan u qaabilsanayo dowladda telecommunicationka iyo boostada waa wax technical oo inta badan siyaasad badan kuma jirto. laakiin haddana wasiir baan ahay oo siyaasadda lagama maarmo oo nolosha bay kamid noqonaysaa. marka waxyaalo badan oo siyaasaddina way soo dhex galayaan. marka aan ka bilaabo arrinta hadda taagan masalan maantadan aan isla hadlayno waddankii waxaa laga yaabaa inay arrin badan xiisale ka jiraan oo kulligiina isweydiinayso leedahay waa maxay waxaan cusub ee socda masalan ama goboleysiga ama federalismka arrimahan ugu dambeeya baydhabo ka socda. what's going on, what's cooking. marka taa baan rabaa bal wax inaan ka sheego. xalayna sidoo kale su-aalaha aad baa lii weydiiyey oo marka waxaan garanayaa idinka inaad kolley weydiin lahaydeen laakiin waa ka special aan sameynaya. arrimahan federaalka waxaa weeye go-aan dowladdu ay gaartay oo lagu heshiiyey in waddankii uu ka baxo waqtigii hal dawlad oo central ay waddanka u dhan maamuli jirtay oo loo gudbo xilli dowladda federaalka ama centralkan ay jirto laakiin gobolladana ay noqon karaan autonomous. fikradda maaha fikrad cusub, waxaan anaga soo ikhtiraacnayna ma aha, wax adduunka cusubna ma aha. wadamo badan oo hore u maray oo successful ah ama ahaadan America ama waddan kale joogtaanba wadamo badan ayaa federaal. marka federaalku ma aha wax cusub oo maqiila caadi ma. in fact haddii si loo fiiriyo waa habka keliya ee nagu habboon inaan ku wada noolaan karno. Soomaaliya loo fiiriyo waa ka doodi karnaa hadda academic tahay oo waa isku raaci karnaa waa isku diidi karnaa. laakiin si kastaba ahaatee waa hadda waddada aan dooranay inaan ku socono oon waddankeena ku dhisno. Yuusuf Garabey, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.